ciidamada mujaahidiinta ah meel walba joogay lixda gobol ku sugan heegan baa la gelaya buuxa waa amarka dambaysa saraakiisha gudaha ku jirta ee taageersan mujaahidiinta diidaya dulmiga muuse iyo gruubkiisu wadaan heegan buuxa la galayo ciidanku waa amarka dambaysa waa la isarki doonaa ama badhasaab warqad u soo dhiib ama mid liita u soo dhiib waa la isarki doonaa gudaha la isku arki doonaa haddii alla yidhaaho waana dhiman insha allah bidnillaahi kariim waana gudahana waa ka bilaabi doonaa haddii alla yidhaaho kamana noqon doono 180 kilomitir baan gudaha idinku soo galay waxba tara weyde waa laydin karbaashaya haddii alla yidhaaho gumada darar weyne degaankayga wey awalba maan weeran ciidamada deganna waan ku ogaa daalin baa soo galay nin daalina ceergaaba ka yimi taliya qaybeed lagu sheegay rag badan ku laayay wadanka isagaan beegsanay isaga ayaan weerarka ku beegsanayay weerar habeennimo ahaa goobtu ku jiraa way cayinay waan kala garanayay awgalkaasi wuxuu u dhacay mid habeennimo ahaa mid dhalaareedna waa isku arki doonaa haddii alla yidhaaho qolyahan leh qabaa'il baa la isdilayaa iyo waxbaa la isdilayaa waa tabahooda jeeceelif weyn ka dhacday iyagaa waday tahawd ka tirtana iyagaa waday anigaa 3 sanadood dhex fadhiyay 3 sanadoodba waxaan ku qariya gumcad laba ciidan baad isku hubaysay mushaharkaad siisay ka jaa muslimka sida dhibaatada ka jaa qodob dhulbaantay isla waxaan leeyahay waa isfahma ilaahayna ka baqa ashahaadka wadhigiina daadanaya joojiya oo dadka isku kiindiraya annaga oge ha maqlina ina kaahinayo musabixi waxay sameynayaan ha maqlina annaga og inay sii fadhiyaan bay doonayaan inay mashaariic furaan bay doonayaan qolada abtiyadayna waxaan leeyahay idinkuma socono abtiyaday waxaan leeyahay idinkuma socono wallaahi idinkuma socono haddaa ilaahay garanaysaan oo bilaahi idinkuma socono oo tallaahi idinkuma socono oo dooni mayno in qof bini aadami wax gaadhaan laakiin daalimiinta isku diraya beelaha aan horumarka ogolayn dadka doonayn inay cadaalad sameeyaan waa la dagaalamaynaa wallaahi waa la dagaalamaynaa idinka sayid dooni mayno soo bax baa la leeyahay shacabka leefaysa wixii hore ee laga cabanayay ayaa weli jeegaantii sii wada weliba maatadii iyo caruurtii baa rasaas lala dhacaya lala doonanaya arrin xalay ceerigaabo ka dhacday oo aad u fool xun oo ciyaalkii hurdadii laga kiciyay oo dadkii waaweynaa sariirii ka dhaceen ayuu muuse iyo gruubkiisu sameeyeen waxaan isleeyahay haddaad muuse isleedahay hargeysaad ku leedaysaa ceerigaabo khalkhal geli oo ceerigaabo dagaal geli waxaan kuu sheegayaa inaanu hargeysana kula joogno ciidanka iyaguna kula joogaan halkan waxaan kala hadlayaa anigu inaan kanabtiga u ahay ee barasaabka gobolka Sanaag waxaan leeyahay abti keena carari doonaba abti la arkay ceerigaabo isugu imanaynaa warkaagii aad baan u dhuuxay habeen hore aad baan u dhageystay yaan abti lagaa waayna arrinkaa way soo imanaynaa adiga iyo kuwan kale dabadhelifka dabada ku wadatid abti waan isugu iman doonaa ceerigaabo bal keena carara inaga maaha waxaan kaloo leeyahay qoladaanu maadeertanahay waar idinkuma soo socono annagu idinka ilaahay ka baqa dad maadeera baanu nahay yaan la isku keen dirin annagu taaridkay waa meel cid baanu saynaa isma hayno annagu shacab muusiyo ina kaahin weli isuma haysan maanta waa madaxa dalka si ay ku yimaadeen baa alla og ummaduna way ogtahay bas waxaan leeyahay ummadan ay isku dhiibaan xabadda ee walaalaha dirisa ah ee istiraya hadda joojo weydaan anu waan haynaa britwa iyo brikan maalin waan haynaa